waxaa waaye inaan kuliyadda isku daydo bal mashaakil caqabaadka dhex taagan beeraha in qayb ay ka qaadan karto ka qaato koow ardada in lagu dhiirigeliyo inay sameeyaan baadhitaan maxaa jira cilmiga baranaysa haddaada baadhin waxba ma soo kordhinayo sidoo kale macallimiinta laftooda inaan u sameyno platformkii ama meeshii bey'adii wax ku beeri lahaa ayaan ku tijaabin lahaayeen oo aan noqoto laabka jaamacadda iyo dhiirigelintii marka ujeedku waxaa waa inaan dhiirigelino in la sameeyo cilmi baadhis ku saabsan beeraha ciwaankeenna wuxuu ahaa horta saamaynta ay leeyihiin 3 geed qaadasada macalinku uu sheegay toon basbaas iyo dhagyare kuwaas oo loo gloves hot pepper iyo garlic mar saddexdaas geed waxaa u dooranaa waxay tahay way kulul yihiin dadku waxay isna maxay kuwaan u qaadateen geedo badan aa jiro digirtan waxaa u dooranaa waxay tahay marka fiirin geedo badan uu saameeyo horta cayaanka aan la dagaalami rabno wuxuu ahaa af dheeraha miskawbi weevil-ka sida loo yaqaano asagana waxaa u dooran inta badan digirta asaa saameeyo baqaarada markaa tagnay fiirnay dadku wax dhibaatada badan ku hay asagu ahaa sasa u qaa markii aan lisidin kawan maxay u doorteen goonigaas wax noo ahaa ma lahayn mid walba waxaa fiirinayna oo midka heli karno oo dadkana saameyn ku hay mis dhibaateynaya markaas sasa u qaadanay digirtan waxaa u dooranay inta badan suuq waa aragnay digir fiican oo ma arkaysid loor ku jirto wax dhan aan lahayn wada nadiif ah marka sasa digirtan u dooranay marka ciwaankeenu wuxuu ahaa saameynta ay saddexdan geed bisbaaskan toontan iyo dhagyarahan ay ku yeelan karaan cayaankan cowbee weevil-ka ama af dheeraha sida loo yaqaano inta badanna saameeya digirta marka sidaas u qaadanay ciwaankeenana waa kaas aan ka hadli doono research-kana ku sameynay waxaan leeyahay hambalyo ardada hawsha qiimaha leh ka qabatay cilmi baarisatan hambalyo kuliyadda beeraha ee SIU hambalyo jaamacadda SIU intaba maartay waxaan qiraynaa tallaabooyin aad u qiimo badan in la qaaday waxaan rabnaa dadka aan la tartamayna fiiriya SIU lama tartamayso simad lama tartamayso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed tartan waxay kula jirtaa kuwa asaageena ah ee Afrika wax ku baranaya bartilmaameedkiina marka waa inuu noqdaa maxaa ka socda agagaaraheena ana u mahad celiyo dadka khubarada ah oo kala gedisan oo nagala soo qayb galay barnaamijka sida ex wasiir Bafo Xaaji Mire oo runtii kana mid ah maaragtay odayaasha jaamacadda iyo waalidiinta jaamacaddana maaragtay ka mid ah dadka ummadda Soomaaliyeed maaragtay baahiyaha ugu badan ay qabaan ku mashquulsan inay horumariyaan ka mid ah aad iyo aad ayay maaragtay aan ugu mahad celinaa ka soo qayb galka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sidoo kale dadkii ka soo qayb galay macnaha soo diyaariyay barnaamijkan u horeeya xafiiska research and development-ga research director-ka kulliyadda Ustaad Weli macallimiinta iyo ardayda runtii aad iyo aad baan runtii dadaalka iyo isku dayga ay sameeyaan ayaan uga mahad celinaynaa waa aad iyo aad baa u mahadsantihiin shaqadii loo baahnaa bilowgeeda ayaa qabateen la sii wado maaragtay daraasadan oo phase 2geedii loo gudbiyo markii phase 2 la gaarin insha Allah taala naloo soo celin doono ilaa la gaaro finalkeedii oo aan ummadda Soomaaliyeed inta isugu yeerno oo suggestionka inta ka baxdo in recommendation maaragtay ay gaartaan aan rajaynaynaa ka soo qaybgalayaasha mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin